Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan oo wacan walaalahay daawadaas qiimaha iyo khayaal leh. Maanta kusoo dhawaada qiso oo waxaan hayaa nyaxaas iyo shaweel isgaasgaatin walaalahay. Maanta dadka badnaantooda nyaxaaskay ka cabsadaan, marka nyaxaasku wuxuu awood ku leeyahay biyaha dhexdiisa, laakiin nin shaweel la yiraaho asagana wuxuu awood ku leeyahay walaalayaal gudaha oo ka awood badan yahay. marka in aniga hordhac mara walaalayaal, bal qisadan ila daawada. libaax waaye badda ku jira, bal libaaxa arag oo badda ku dhex dabaalahay. aboo shabeelna intuu joogaahe banaankaas marmaroya, bal wuxuu gaadoya nyaxaasahe waa kaas ninka shabeel lahay. bal inaa iniga hordhac marawe, bal qisada ila daawada walaalahay qiimaha iyo khayaal leh. nyaxaaska meeshuu ku sugaya, bal fiiri nyaxaaska hata biyaha. shabeelkan maxuu rabaa nyaxaaskaas inuu gaado rabaa, mar waa la kala warla'yahay. bal ila daawada walaalahay macaan qiimaha iyo khayaal leh. ka daro dibidhal allahi biyahoo dhex gale hayehee waa la isaastaa. shabeelkii lagu dhagan yahay, ninkan wuxuu umaleeyaa shabeelo waxaa umaleysaa inaa nyaxaaska awood badan tahay. awood ilaaha leh. nyaxaaska biyaha buu ku adag yahay, awooduu ku leeyahay. bal ila daawada walaalahay qiimaha iyo khayaal leh. abababa nyaxaasa lagu dhagan yahay, waa la gaaday nyaxaaska. libaaxna fiirihe
الفيرة نقان شبيلك وحور وإنه وحق على ضربة نحاسك كنت معه والله لايك شير كومنتي هكي المامنة. السلام عليكم ورحمة الله.